waan ku salaamay daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhawow qaybta xigtaa sheekadii taxanaha ahayd ee ku saabsan mashruucii la dagaalanka nuurka. soo gudbinta taxanahan waxaa taabageliyay cisbitaalka Marwa Fertility Center, hoyga daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. sheekadani waxaa qoray Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac, sida buugga uu qoran yahay waxba kama bedeli doono waxna kuma dari doono, sababtoo ah waa sheeko taxanaha oo aad u wanaagsan kuna saabsan geeyiga Soomaalida marka aad eegto siday wax u qoran yihiin. qaybtii hore waxay inoo joogtay markii isaga uu aaday magaalada Lisbon oo dalka Boortaqiiska ah si uu halkaasi uu kaga qayb galo barnaamij looga hadlaya aayaha siyaasadda Soomaalida koonfureed. shirkaasina waxaa la doonayay in Soomaalida loogu sameeyo nidaam federaal ah oo sii murjiya mushkiladaha hadda ay dhexdabaalanayaan. qaybtii xigtaa waxay ku bilaabanaysaa qola xag jir ayaa ku dooday in Soomaalida laga qaado xaqa aaya ka tashiga oo gacanta loo geliyo qaramada midoobay ama dalalka